Assalaamu calaykum saaxiibayaal, sidee loo sameeyaa muuqaal noocan oo kaleeta? Dad badan oo asxaabteeda ka mid ah ayaa i soo weydiiyey sida loo sameeyo muuqaalada noocan oo kaleeto. Fadlan aniga ayaa ku bari doono. Ugu horeyn waxaan kusoo xasuusinayaa inaad YouTube-kan subscribe ii dhahdo, muuqaalkan aad like saarto si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kaleeto ah. Si aan markaasi aan kuu baro, waxaad u baahan tahay inaad soo kacsato application-ka CapCut. Intaan CapCut gelin mar labaad waxaan ku xasuusinayaa inaad channelka subscribe ii dhahdo si aan u gaaro 5,000 oo subscribe ah. Haddaba adiga ayay kugu xiran tahay, subscribe saar oo muuqaalkan like saar, u share garay saaxiibadaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kaleeto ah. Okay, waxaan soo furnaynaa application-ka CapCut. CapCut markaad soo furto, muuqaalkii ayaad soo xulanaysaa oo markaasi journalka ahaa isagoo green screen ah, kadibna loogada ayaad iska daleedaysaa. Markuu sidan kugu soo baxo, xogo yar ayaad soo yareynaysaa oo waxaad sameynaysaa overlay aad ku dhufanaysaa, kadibna Ronaldo sawirkiisa ayaad soo qaadaysaa. Markaad soo qaado, halkan ayaad waxaad ku raadinaysaa meel ay ku qoran tahay maaska markaa aragto waa ku dhufanaysaa. Halkan oo 4 gees ah ayaan ku calaamaday aad ku dhufanaysaa. Kadib sawirka ayaad halkaasi la ekeysiinaysaa halkaas ayaad markaasi la ekeysiinaysaa oo meeshii oo maaska ayaad kusoo laabanaysaa. Kadib calaamadahaas ayaad marba kor ama dhinac u jiidaysaa si uu meesha ula ekaado. Adii marka cabirkaaga ayay ku xiran tahay. Okay, hadda kan sidan ayaan ku sameynay oo haddana waxaan u baahanahay marka wali cabirka size-ka sida saxda ayaan u ekeysiinaynaa si uu markaasi aan loo fahmin oo markaasi loo dhihin journalka waa la soo faafrikay oo kaleeto si loo dhihin. Midkan waa sameynay, waxaan u baahanahay sawir kale overlay ku dhufo. Haddana meesha sawirada tag, Ronaldo ayaan soo qaadanaynaa isagoo koobka gacanta ku hayo. Kadibna halkan ayaan asina ku base gareynaynaa oo isla maaska ayaad tagaysaa ama marka hore sawirka ayaan soo yareynaynaa, kadibna muuqaalkan waa soo bixinaynaa oo waxa way save ayaan dhahaynaa si aan markaasi journalkeena noogu diyaarsanaado. Okay, save ayaad dhahaysaa oo sida aan u save gareeyay ayaad u soo bixinaysaa. Muuqaalkan sidan ayaan ku haysanaa. Kadibna waxaa u baahanahay inaan haddana sawirada kaleetay muuqaalada kaleeta aan markaasi isku edit gareyno. Fadlan muuqaalka aad ayuu dheer yahay, la soco. Waxaan soo qaadanaynaa muuqaalkii kale oo aan markaasi rabno inaan asina journalka oo kale u diyaarino. Overlay ku dhufo, sawirka Ronaldo ayaan soo qaadanaynaa. Markaas soo qaadan kadib halkaas ayaad asina ku buuxinaysaa oo aad la ekeysiinaysaa. Okay, markaad la ekeysiiso asina markaas waxaa leedahay save ayaad dhahaysaa asina marka aad la ekeysiiso. Okay, hadda waxaan sidan ku save gareynay 2 muuqaal oo inoo diyaarsan yihiin. Muuqaalka aad u dheer yahay, la soco. Okay, waa ka soo bixinaa. Marka haddana waxaan soo qaadanaynaa sawirka kaleeto oo Ronaldo ayaan haddana mar kale halkan ama warqadan asina saaraynaa, save ayaan dhahaynaa. Okay, muuqaalka saddexaad waaye. Muuqaalka aad u dheer yahay, la soco. Waa kugu celinaa, mar walbana waa kugu celinayaa. Okay, waxaa u baahan tahay marka new project ayaad ku dhufanaysaa. Muuqaalkii Ronaldo ayaad soo gelinaysaa oo waad jarjaraysaa. Muuqaalka goolal iyo waxaas ay isku jira waa soo baxsanaysaa, kadibna waad soo jarjaraysaa oo halkan ayaan markaasi waxa u baahanahay asoo markaasi devil ama lugaaley kacayo ayaan markaasi edit gareynaa. Overlay kale ayaa keenaysaa oo markaasi journalka aad soo diyaarisay ayaa dhaxdan ku soo buuxinaysaa. Muuqaalkan dad badan ma fahmin way dhixi doonaan. Okay, adi markaas soo degsato video Ronaldo YouTube aad ka soo degsanaysaa, kadib waa soo jarjaraysaa. Muuqaalka markaas soo jarjarto goolalka iyo waxaas dhan aad soo jarjarto, halkan ayaad la imaanaysaa. Kadibna sidan ayaad markaasi u diyaarinaysaa. Warqadahana sida hadda loo soo diyaariyaa. Kadibna dhaxda ayaan ku soo gelinay warqada. Haddana zoom ayaan dhahnay oo halkaas calaamadaas ayaan taabanay. Kadibna warqadii ayaan imaanay. Warqada ayadana zoom soo dhahnay. Calaamadaas ayaan adeegsan doonaa halkan aan ku calaamadeeyay. Dad badan way dhihi doonaan ma fahmin. Haddaba si fiican ula soco. Waaka sidan ayaan u soo dhaweeyay. Calaamadaas ayaan adeegsan doonaa sidaan hadda ku sheegaba. Calaamadaas ayaan mar walba aan
zoom aan dhaho ama gadaal aan u celiyo ayada aan markaasi halkaas dhigi doonaa si uu muuqaalka si tartiiba gadaal ugu baxo haddana zoom isoo dhaho. Okay, la soco marka muuqaalka aad u dheer yahay sidii hore aan kuugu sheegay waaye. haddana markanaas zoom soo dhahanay haddana calaamada ayaan ku dhufanay. calaamadan marar badan waa adeegsan doonaa si uu muuqaalkeena u qurux badnaado. haddaba ila soco. Okay, sida ujeedaba calaamadii ayaan markaasi zaaid u adeegsaday si uu sawirka zoom isu dhaho gadaalna isu celiyo. Okay, halkan ayaan qalad ka dareemay waa iska saxaya kadibna waa kaasa. Okay, marka dhibil markuu kacayo muuqaalkii uu baxa waxa soo galay joornaalkii aan soo diyaarinay. ila faham marka sawirka joornaalka mar hore ayaan soo diyaarinay sida aan hore kuugu sheegayba. waxaan dhan hore u soo diyaarsanay waa ila socotay bilowga muuqaalka ayaan ku soo diyaarsanay. halkan ayaan shaashada kula ekeysiinay kadibna waxa waaye calaamadaas yar ayaa adeegsanay. Okay, muuqaalkan adii mar badan ku cesho si aad u fahanto. Okay, waxaan ku xasuusinayaa inaad subscribe ii saarto inta aan shaqada ku jiro. muuqaalkii qayb ayaan markaasi sidaas ku diyaarinay kadibna waxaa soo baxayo muuqaal aad u qurux badan. Okay, hadirtaan muuqaalkan sidan uu ku diyaariyay. muuqaaladii kale ayaa soo gagalay markaasi. waxaa u baahanahay sawirkii kale ama muuqaalkii kale aad diyaarinay inaan halkan asina soo dhaxgelino. waa muuqaalo goos la isku keenay adna waa isku keeni kartaa intaan fahan uma baahno. intii muhiimka ah ayaa ku sharxaya. overlay labaad ayaan soo qaatay halkan ayaa asina ku buuxinaya. markuu sidaan soo dhahayo hadhow waxaa la rabaa warqada inay ku soo baxdo meesha. Okay, warqadana calaamadii ayaan adeegsan doonaa. ila soco. calaamadaas ayaan markeedana u adeegsan doonaa si ay zoom isku soo dhacdo oo ay shaashadu u leekaato kadibna aad markaasi meesha ugu baxdo. Okay, gees ayaan geeyay marka waxaan rabaa inay saas u soo gasho oo zoom isu soo dhacdo. calaamadii ayaan adeegsan doonaa waa kuu sheegay. Okay, ila soco wixii aan sameynay kaliya samee kadib muuqaal qurux badan ayaad markaasi soo saari doontaa. koley toole dad badan subscribe wali iima saarin. waxaan idin dhihi lahaa please subscribe ta iga xaqirina. mar walba farxadiina ayaa farxad ii ah. wixii soo sameeyay idhahdana waa soo sameynaya. Okay, sidan ayaa markaasi overlay labaad aan ku diyaarinay. maadaama overlay labaad aan diyaarinay waxaa u baahanahay kii saddexaad oo fanaanadan kaleeto inaan soo gelino. Okay, kii saddexaad ayaan soo qaadanay kadibna asina meeshaas ayaan soo dhignay. sidii hadda ayaa asina u diyaarinaynaa. Okay, horta gadaal ayaan ka tiraynaa. remove background ayaad leedahay. calaamadaas ayaad jiidaysaa ilaa uu kaaga tirmaayo kadibna save ayaad leedahay. sidii hadda ayaa u diyaarinaysaa asina waxaa la rabaa gees inuu ku imaado haddana zoom isu soo dhaho. Okay, calaamadaas dhowr jeer ayaan adeegsanay sidaan kuu sheegay. calaamada ayaad riixaysaa kadibna muuqaalka meesha aad rabto ayaad usoo zoom gareynaysaa amaba aad u yareynaysaa. halkan ayaan dhigay calaamada ayaan dhibic siinaya kadib markaas soo bixinayana calaamadii ayaan bartaas dhibic ku siinaya. haddana waa soo zoom gareynaa dhibic ayadaa ku siinaya. calaamadaas mar walba dhibicda adeegsanaya. fadlan ila soco muuqaalka aad u dheer yahay. Okay, zoom markaas soo dhaho calaamada ugu dambeysa click siiyo kadib muuqaalkii gees ayuu ku imaanaya sawirkii. Okay, halkan ayaan waxaan rabnaa text inaan u adeegsano xoogo yar color ayaan ku dareynaa sida aan ka dhiganayo ka dhigo kadibna waxaa waaye muuqaal qurux badan ayuu kugu soo bixi doonaa. boortieri oo markaasi murugsan waaye. Okay, haddii aad gooshan aad daawanaysayna waxaa tahay legend. Okay, overlayga aan soo qaatayna waxaad ka helaysaa Pinterest ayaad ka helaysaa. Okay, isha ayaad markaasi ku saaraysaa overlaygan. Okay, text ayaan markaasi adeegsanay. textigeena you lost ayaan markaasi ku qornay. koley lost way fahansan yihiin dadka wanay kasbad isticmaalo already. Okay, waa kala reynaynaa kadib waa fahansantihiin intaan mar hore idin baray. waxaa waaye space ayaan u adeegsanaynaa kadibna angle-ka ayaa u adeegsanay ama wareega ayaa u adeegsanay shapeskeena. Okay, waxaan rabnaa in marka textiga marka uu soo galayo animationkiisa iska saxinaa. kadib animationkan ayaan ka doortay textiga ayaan soo yareeyay. marka muuqaalkeeni waxaan ku leeyahay sidan ayaan ku diyaarinay. sida ujeedaba waa qaladkii yaryaraa ayaan ka bixinaynaa. Okay, muuqaalkan ayaa soo qaadnay oo labo muuqaalan ka dhignay kadibna waxaan rabnaa inaan ka tirno background-ka kan.
waxaa labo mar usoo celiyay inaan background ka tiraa rabaa. Overlaygan ayaan soo adeegsaday oo asina meeshan filter ku qoran ayaa tagayaa, filterka ayaan ka dhiganaynaa. Kadibna markuu kacayo waxaa rabaa bul inay dhahdo, kadibna warqadda ay soo baxdo. Ila fahan, mar badan ku ceshcesho muuqaalkan waa keeni doontaa, bilow ilaa dhammaad ku ceshcesho waad keeni doontaa insha Allah. waxaa rabaa markii dhibil kacayo kadib in si toos ah uu warqadda usoo gasho. Okay, calaamadahan waxaan dhan sidaa ka dhigo, kadibna muuqaal qurux badan aad soo saari doontaa insha Allah. waa mahadsantihiin dhammaantiin. waxaa idinka codsanaa in YouTube subscribe ii saartaan, TikTok naad follow inoo dhahdaan. mahadsanidin.